kula wacan oo wanaagsan idilkiinba ku soo dhowaada janalka Xayla Media. Maanta waxaan inii wadaa qiso la yaab leh oo waliba haddii aad ku dhaqantid adiga dhageysanaya insha Allahu tacaala aad ku dawoon doonto dawo aad ka heli doonto. Ma tahay qof xanuun qaba noocu xanuunka noqdaba ma dareemaysaa meel ku xanuunaysa jirka meel u noqdaba xanuun ma dareemaysaa? hadday ay tahay jawaabtu haa, adkaartan aan inii akhrin doono dhageysta oo ku dhaqma. waxaa lagaga baahan yahay in aad samaysid intaad weysaysatid 7 jeer ayaad ku akhrin doontaa. waxayna ku dhacday nin saxaabi ah oo soo islaamay ayaa arrintaa ayay qabsatay, gaar ahaan xilligii magaalada Madiina dadka ay isugu yimaadeen. nin reemiye oo dalka iyo deegaanka u deganaa ka yimid, kaasoo daltabo intay ku dhacday ayaa waxaa dhacday ninkani nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u soo gudbiyaa cabasho. maxaa yeelay nebigeenna Muxamed sallallahu calayhi wasallam waa cidda keli ah ee nafteenna aan ka dooranayno. cid kasta asaga ayaan ka jecelahay, nafteenna iyo ciyaalkeenna iyo waxaan jecelahay oo dhan asaga ee nebi Muxamed ah sallallahu calayhi wasallam ayaanu ka jecelahay. ninkani saxaabi buu ahaa. nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u yimid, wuxuuna dhahay, rasuulkii ilaahayow, maalinkan soo islaamay ilaa cagadan aan joogo jidhka unbay xanuunaya, hal habeena caafimaad ima taabanin. markaa sidaa darteed rasuulkii ilaahayow, xanuunkan ayaa i haya ayuu ku yidhi. markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dhakhtar ayuu ahaa. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa u sheegahayay oo hadalkiisa waxyiga labaad ayuu ahaa. markii qur-aanka laga soo tago, waxyiga labaad waa hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam. nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu ninka u yimid ayuu wuxuu ku yidhi, suubanow, maalinkan soo islaamay ilaa cagadana aan joogo hal habeena nabad kuma seexanin, sababtoo ah jidhka ayaa aad ii xanuunaya, aad ayuu ii ololayaa, waan rafaadsanahay. rasuulka ilaahayow, bal maxaan sameeyaa ayuu ku yidhi. markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la siiyey in uu ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasta uu sameeyo ilaahay waa ku daweynayaa. maxaa yeelay gebigiisa nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ayaaba mucjiso ka samaysnaaba. mucjiso ayuu ahaaba. waa kii nebiga calayhi salaatu wasalaam dad intay oomeen gacantiisa intuu biyaha saa u geliyey ay biyaha ka burqadeen. waad garanaysaan axaadiistii saxiixad ahayd. sidaa darteed ducadan ama adkaartan ayuu ninka saxaabiga ahaa ku hanuuniya oo u sheegay. wuxuu ku dhahay, idaa axsasta, markaad dareentid wajacan xanuun fii jasadika jidhkaaga, maxaa samaynaysaa? qaala sala allahu calayhi wasalam, nebigeenna Muxamed sallallahu calayhi wasallam ayaa wuxuu yidhi, dac, saar yadaka gacantaada cala aladii ta'lam, gacanta meesha ku xanuunaysa faraha foodooda sida u saar oo min jasadika jidhkaaga ka mid ah. waqul waxaana tiraahdaa, bismillaah, 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 magaca eebba ayaan ku bilaabayaa, magaca eebba ayaan ku bilaabayaa, magaca eebba ayaan ku bilaabayaa. waqul 7 maraatin, 7 jeerna weedhahan dheh, 7 jeer weedhahan dheh. acuudu billaahi dheh, acuudu billaahi wa qudratihi
من شر ما أجد وأحاذر صحيح مسلم. وحوده نبينا عليه الصلاة والسلام صدح جير بسم الله ده ما صدح جير بسم الله ده وقول 7 مرات تضوج شرنا ده. أعوذ بالله الله أيان كمن قليا أنكهوز قليا وقدرته أوديسة إيوه عزديسة يا شرفتيسة من شر ما أجد لبك أن دريمهيو وأحاذر أنا كدكتونهي أيو دهي النبي صلى الله عليه وسلم أنيغا إن الله وأنا أرى صورك أنا إني ماشا سارا الدعاء كهوسية حبنت السيدة أصار قعنته أنيغا إن الله وأن تجابيه وأنا